الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توعنا ونكسن هل كان يادنا قد ونسان وسومالي لايف تي في waxaan wareysi gaar ah la yeelan doonaa siyaasi aqoon-yahan oo ku xildheer kana faalooda arrimaha siyaasadda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Keerow Cali waxa warbixin naga siisaa degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxaa ka jira degmadaasi oo dhibaato ka taagan shacabkana ka sheeganaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو هريسو الله محد اسكله gaar ahaan idaacaddan ayaan u mahadcelinayaa madda kale degmada Qansax Dheere oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan dhibaatooyinkeed haddaan ka sheekayno ma dhamaanayso laakiin qayb ka mid ah ayaa haddii ilaahay noo suurtageliyo sheegaynaa degmada Qansax Dheere waa degmo koonfur galbeed ka tirsan oo gobolka Baay lagu xukumo ayadana tuulooyin badan ayaa xukuntaa toddobadan sano oo gudoomiyaha hadda ku magacaaban joogo xeer waxay joogtaa oo tuulooyinkii ayada xukumayaan kasii hooseyso ay taagan tahay marka haddii oo la daro dad la daro oo kormeela la daro tuulooyinkii ayada xukumaysay iyo degmada waxaa la qaataa tuulooyinkii degmo ahaan loo qaataa maxay taa marka loo qaadanayo oo degmadaasi maamulku waxa sheegtay inuu 7 sano joogo ilaa hadda dayactir iyo waxaas ma sameeyeen miya degmadaas wax horumar ma jiro iskuul ma jiro laami ma jiro xarumo dawladeed oo la dayactiray mas'ala dhisay ma jirto wax ilaahay abuuray oo horumar ah oo degmadaas ka socdo hal shay Allah ka dhigay ma jirto waxa dheeri ku ah dadka deegaankaas ku nool oo degmada joogan waxa looga daray qofkii oo fikradaas oo horumarka qabo aan la dilo oo nafta la dhaafiyo sidee loo dilaa markii waxa loo dilayaa se waxa hasheen degmadan inay horumarto ayaa loo dilayaa rag badan ku dhintay oo ku maqan rag badan habsi ay ku jiraan qaarkood habsiga intii maaragtay ku raageen markii la fahmo waa iska banaanka la iska soo bixi oo hadda han dhooliyiin oo handhaha ibarka yihiin wax ka soo baxay malaha qofkii degmadaas ka soo baxay waa inuu isiga maaragtay warqad ka soo qaataa marka cadeemo ma loo hayaa gudoomiyaha degmada in uu dhibaatooyinkaas dhan u geysanayo shacabka Qansax Dheere ha cadeemaha loo hayaa waxa cadeemo loo hayaa degmada waxa lagu dilay rag badan haddii aan soo maaragtay hal iyo laba ka soo xuso rag la yaqaano kabtan Alaboon kamid ah iyo sarkaal kale waxa lagu dilay ninkaas saldhig saldhiga dhexdiisa lagu dilay waa loo yeeray kaale la yiri waa tashanayna markuu meesha loogu yeeray laba baabur laba abdbal intii loo maartay loo qaatay baas lagu jeexay isweydiisa malaha maxkamad loo keentay malaha isagoo naftiisa ma la soo eedaynin hadeertaan rig badan oo rigaas markii la dilay ogaay oo ku xumaay ayaa hadeertaan bixiran maantadan hadda aan kala hadlahay ilaa hadda saacadan way maantadan hadda aan kala hadlahay nin kale oo hogaayo hogtaas ninkaas lagu dili nin haayo ayaa waxa la qorsheeyay in sidoo maaragtay rag la dilay lagu daro hadda waa xiran yahay ma sheegi kartaa ninka xiran magaciisa aadan dheera la yiraahdaa aadan dheera taliya saldhig u ahay ninkaas uu soo yeeray u ahay taliya saldhiga degmada heesta samana dadka meesha jooga horta taliyaasha aan ku sheegay oo meesha joogan waa dad isaga magacaawday waay marka uu horeyso waxa isaga sameystay waay rag isaga sameystay hadii fikir dhan ka soo horjeestaan waa shirqoolay waa dilaya shirqool oo halkaas ku sameeyna uu bedilaa amba sunu sina amba toos au dilaba bareera maaragtay iyadana jaadantiisiyo iyadana meesha waxa meesha jooga waxa isaga maaragtay laba qayb isaga oo kaasa oo qaarijinta u qaabilsanaa jirta marka qaybta soo loo diraa ninkaas waa nafta la dhaafina malasdii kara dawladda federaalka Soomaaliya iyo koonfur galbeed hadii ay isgarabsadaan ciidamada Itoobiyaanka iyo ciidamada isaga uu siiyo waxyaabo ay cunayaan oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku heshiiyaan iyo koonfur galbeed ninkaasi waa laga saari karaa Itoobiyaanka halkaas waa laga bixi karaa aad iyo aad dawladda federaala oo awood leh oo ma sha Allah ahaysana dawladda hadii barnaamijkaas ku kacdo hal saac ku qaal daqiiqo ku qaadanaysa
Ethiopian kasna halfaa loo qaadaya degmadaasna degmo maaragtay oo degmooyinka faa'iido la tartanto ay naqanay ciidan koonfur galbeed ka xisaabsan oo la yaqaan ciidan federal waa la geey karaa laakiin dawladda te arrimaheeda kala maaragtay ka mashquulay ma aqaanay wali arintaas kuma baraarugin waan muhiim degmadaasna muhiim u tahay degmo haddii ogaanay dawladda federaalka Soomaaliya ama ay ka warqabi lahayd waxa la yaabaa dawladda federaalka Soomaaliya hadda waxay ku mashquulsan tahay Ethiopia oo bad ku haysato iyo Ethiopia waxa laga saaray in hawlgalka cusub 2025 laga reebay ciidamada Ethiopianka arrimahaas ku mashquulsan tahay haddii ay u soo jeesato dawladda federaalka Soomaaliya arrintan ay ka warqabto koonfurga ee degmada Qansax Dheer gudoomiyaheeda iyo Ethiopianka ma la isdhihi karaa dawladda federaalka Soomaaliya way soo dhaxgali doontaa arrintaasi ama hooleed kale ay kasii qabsan doontaa waa ka sugeynaa aad iyo aad warbixinadeena waa gaarayaan dawladda federaalka Soomaaliya warbixinteena aad iyo aad u gaareen degmadaasna degmo muhiim u ah way deegaan doorashada hadda la rabo in la qabto degmooyinka laga qabto rabo ay ka mid tahay waa inaad dawladda tagtaa meesha oo ciidan geysaa oo maaragtay horumarkii soo elisaa caafimaadkii soo elisaa waxyaalihii oo maaragtay dawlad looga baahnaa inay meesha ka hirgelisaa waa waajib saaran oo iyada u dhaaratay waay carruurta halkaas jooga ee ka soo jeeda deegaanka Qansax Dheere intee wax ku bartaan waxaa sheegtay in goob waxbarasho aysan lahayn xitaa ma lahana dhahday goob waxbarasho iyo goobo kale oo dukaamo iyo waxaas ma leedahay oo la adeegto dukaamo ma laha kiilo sokora waxay ku joogtaa $2 dugsiyo quraanka xitaa wax ma lee barto kiilo sokora $2 ay ku joogtaa $2 ha kobaha daaska $2 baray ka joogaan waxyaalo marka dukaamankaas gudoomiyaha degmadaas kala ma sidii karaa waxaas dhansaas kale isaga isto ha dadka oo deegaankaas oo maaragtay oo ka soo jeedeen habeen waaba habeen madow soo dhuuntan soo haadeen ma joogaan dadka maanaha waxa meelaha ugu furan dhan waxa isiga leeyahay bas waxa si anshuur ka qaado isaga iskale saas kale waa dukaan isiga leeyahay meeshaas ha goob waxbarasho oo diini iyo maadi diini la ka jirto laakiin maadi kuma jirto ma horta ninkan maaragtay dadkan jaadku cunu wahay aad jaadku u jecel waa qayla balwada nooc walba oo balwada isticmaalo uu isticmaalaa xakmida balwada isticmaala jaadka kamriga hashiishka wax isaga dhaafay malaha dadka isticmaala badanaa jaad maxaa la kamriga hashiishka waxyaabo kala duwan ee ka tustaa ha waa sax ma laga yaabaa marka in hadduu waxaas isticmaalo uu dadka dildili jiray inay ka tusto waxaas intaas waay waxaad ugu weyn udurka hadda ugu weyn oo ninkaas oo haysta intaas waay hadduu aawo isaga oo ah gudoomiye degmo wuxuu isticmaalaa qamri xashiish iyo balaayag loo isticmaalaa aawo hadduu ku dhirgo wuxuu ku tusaysaa laba gabdhood oo magaalo wuxuu samaysanaa hadduu aawo ugu talagalo maar ninkii ka helo oo naagtiisa ay taana wuu dilaa be marka wuxuu si ka helo sameynaa wixii iska tuso balowdaasi isticmaalaya qamrigaasi iyo xashiishkaasi iyo kulli ha intaas hadduu isticmaalo hadduu ma laha wuxuu samaysanaa waana warkaan hadda aan duubayna waa war sax ah waay waa teeda kale dadka isiga oo asxaabta la ah dadka muqayilka ah waay dadka jaadka zaid u jecel ayuu jecel yahay isiga saabtiisa xitaa wuxuu u soo horjeesan laadahay oo ka hor imaan laadahay in isku dagaa uu siinayo wax balwad ah ama ku saabsan xashiishka jaadka si fariya ku cunaan waa ka isiga horumarka uu siin lahaynin mar rabo in halfaa loo qaadan lahay ha qaabla saacadan kulli oo dhamay lahayn waxyaalaha dadkaas ku haysto dhalinyaradaas meesha ku haysto waxa ka mid ah jaadka iyo balwadaas kale ayaa ka mid ah jaadka halkuu ugu soo degaa jaadka waxaa jiro mootooyin oo isiga samaystay oo isiga leeyahay jiro jaadku soo qaado laalushu dhiibaa shabaabka naftigiisa laalushu siiyaa al-shabaabku laalushu siiyaa malas dhigi karaa ninkaas wuxuu u dhexeeyaa ciidamada Ethiopianka iyo kooxda al-shabaab ilaa nin al-shabaab laalushiyo oo waxba ma maahan waxay la mid tahay isaga oo la shaqeeyo qasaa dheer go'doon waay jaadna maalin walba waa imaadaa 90 kilomitir bay dhow jirtaa 90 iyo waxaas ma ogola al-shabaab inta soo marsiya marka see lagu keenaa xag la soo marsiya wax baa jira waxaa laga yaabaa in heshiisyo oo iska dhexeeya ama laga yaabaa dhowr jeer hataa shabaabka daftarkiisa fahmay
ولا قبتي أو رد بدن أكو دنتي رد بدن أكو دنتي شبابك معنا ما أقوله لكن نفترض كذا وحاجر ضد فضينا ولا كلا ما هن أيجا نوع سجستين إن العجيب وحسيب قاتان وهذا قبل وحياة تفكير وقبته إن وحاس وجناحان العجيب قاتان سيدا قفط واحد وكل قعدين لجدره هذا وحيانا قتي إن بلاوان العجلة يقال قفل السيدة لكن نينكاس هذه هذا مرقبتين مرسو مقبل ما ضد بدنا قبتين ضد قبتين والد دلي الشوب كدليس أي السجل الشرقولة سوق شرق هذي قف كل أوبا لقبتوا هذا أساسا الودلة معناها إن كان بالولد وين مقتل نن بالولد وين كان هذا نن أو حس شكل زي ما هذا تهذا كلا سواء ذيكتا حمر ويماذا ديارة أما مرتي توبيان كرة وحس أنتو كإذيكتا حمر سدوا ذيكتا حمر حيرات على جسر هذا سدوا ذيك حمر بحيرات تنلقى قاعد سوما أو دمينك وجوج دمينك وجوجا واي ما ولا بتاع وانا نس مرتي او توبي وشقيوه يلا هذا كر نينك دمينك كيف ولي ما كتير سنة هاي كونفور قلبي كان مسؤولة كونفور قلبي كتير سنة وان كسوينا نكاس أنو قانت سوق اليو نن مسؤولة أو شرف له أو معرتي معقولة وحي حيستمرنا قانون لكن أنا الرجاس أو معرتي نكاس دلين أو محكمة كانوا أو رجي كانوا وان كسوينا قولي كم قرصنا أنا maxaa baa ku dareysaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeed maxaa baa ku dareysaa koonfur galbeed aan ka hormarayaa koonfur galbeed abda asiis qasax dheere dhibaatada maartii ku jirto waa ogtahay haddii adaga ogeyn waxaan ka rabnaa inaan meeshaas maamulkaas meesha ka shaqeynayo inaan wax ka bedeshid haddii ma aragti adaga madaxweynaha koonfur galbeed aad tahay oo dadka deegaankaas aad ka naxayso oo horumarkooda reer qasax dheere aad rabtid waxaan rabaa wiilka aad dhashay hataa u dhiib qasax dheere wiilka aad dhashay hataa u dhiib dad badan oo geelidla ah oo degmadaas ka soo jeedo oo sharaf leh oo wax ma aragti maamul kara ayaa jooga dadka deegaanka intaa la tashitid ninkaas halaga qabta deegaankaas degmadaas ninkaas halaga bedelo abdi asiis intaasaan leeyahay ma ku dheeraanayo wax kastoo meesha ku jiro waa ogyahay laakiin waxaan kaa rabnaa abdi asiis oo kaaga fadhinaa deegaankaas dhibaataa ka jirta cabaaraa ka jirto oo ma aragtay askari oo ma aragtay nabad sugid ah mas askari boolis ah oo dambe baaro oo ma aragtay maxkamad wax keeno ma joogo 7 sano ninkaasaa jooga 7 sano dambi waa ka dhacay dadka naftarkooda meesha jooga malaa'ig maaha ma ogtahay dambi waa ka dhacay qaarna waa la dulminaay saa hadda u jeedin qaarna waa la dulmay qaarna dambi ka dhacay hal qof oo maxkamad la keenay malaha maxay ku tusay marka in uu meesha asiga iska leeyahay 7 sano uu joogay uu xilka haystay Abdulaziz lafta gareen meeqa mar uu tagay hal mar uu tagay noloshiis hal mar uu tagay noloshiis ka sax halkaas marna muxuu tagay halkaas mar biibaha ka dhacday dad adduunka dhan ka qayliyay igu sabr u tagay waas ku soo sabray waana ka soo laabtay kabiis habeenka ku soo gashay kabiis aaga ku jira kabiis aaga ku jira aaga ku jira tagay dalada saan loo roobku gudaay isla markiina waa ka soo laabtay ilaa ma qasoo joog adaga u badnaan 2 sano ka badnaan marka la dib u malaabay dhibaatooyin badan xaggaas ka dhaceen oo kooxaha bulshada kala waa la soo weeraray askarta waa la shirqoolay waa la dilay 5 qof mar lagu dilay 3 waa lagu dhacay mar 2 lagu dilay mar 3 lagu dilay habeen walba askarta waa la soo weeraray waa la dilay halaas wax dhacayaan anigu ka warqaba waa ka warqabay uu ka jaakiraya ama dhagta muu dhiganin marka Abdulaziz waxaan leenahay maamulkaas meesha ku jiro maaragtay ka bedel nidaamka dadka meesha joogo maamulkaas waa qaldan yahay arintaas degmadaas haloo fiirmo gooni haloo lahaado wax laga bedelo dawladda federaalka ku soo hartay dawladda federaalka Soomaaliya dhan adaa mas'uulka ah anaga waxaan ka rabnaa madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka rabnaa qasax dheere inuu wafdi u diro wafdi balaaran oo lagu kalsoon yahay inuu u diro oo dadkii deegaanka dhibaatada haysa soo arko rafaadka kama wada soo arko burburka magaalada ku jirto maartay soo arko wadooyinka soo arko intaas aan ka rabnaa ciidankaas meesha jooga in la nambareeyo oo askari qaran laga dhigo oo degmadii ciidan maartay degmo wanaagsan nagato
madaxweynaha jamhuuriyadda saasaan ka codsanaynaa si ugu dhaqsaha badan arrintan in kasoo jawaabo soo fargeliyo intaasaan ka codsanaynaa aad iyo aad ay u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa siyaasi aqoon-yahan kana faalooda arrimaha siyaasadda koonfur galbeed Soomaaliya dhibaatada ka jirta ayuu nagu waramay degmada Qansax Dheere waa mahadsan tahay sida quruxda badan inoo kusoo qaybishay xafiiskeena Somali Live TV markalena kugu soo dhaweynaynaa waxaan idin kaga tagnaa sidaas iyo nabad